Sagaal calaamadood oo ay leeyihiin dadka dhinaca wanaagsan ka eega nolosha. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed Faysal Cali. Ugu horeyn intaanan muuqaalkan kula wadaagin, fadlan subscribe saar kanaalkayga si aad ula socon karto muuqaalo kale oo xiiso badan insha Allah. Dadka dhanka wanaagsan ka eega noloshu waa dad isku kalsoon. Dadkani waa dad aad iskugu kalsoon, waayo waxay og yihiin inay guul kasta ku xidhan tahay dadaal iyo shaqo adag marka laga yimaado qoraalka Ilaahay. Dadkani waa dad aragti wanaagsan ka haysta nolosha. Waxaan uga jeedaa qodobkan, dadkani inay yihiin dad xaalad kasta oo adag ka eega dhanka micnaha iyo rajadu ka muuqato, sababtoo ah waxay og yihiin inaanay xaaladda adagi iyaga qeexayn, hore ayaanay uga socdaan. Dadkani ma xidhaan muraayad weynayso ah oo ay keliya ku eegaan xumaanta, laakiinse waxay sii wadaan socodka iyo tallaabada ilaa ay ka gaadhaan rajadooda. Inta ay safarka ku sii jiraanna ma dhegaystaan dadka aan tilmaanta wanaagsan u sheegayn. Qofka noocan ahi wakhtiga iskagama lumiyo inuu u calaacalo dadka kale, waayo waxa uu og yahay inay muhiim u tahay noloshiisa xal waara. Wixii intaas ka soo hadhaana waxa uu aaminsan yahay inay u tahay noloshiisa wakhti lumis. Qofka noocan ahi waa qof cafiska iyo raaligelinta aad u jecel, waayo waxa uu og yahay haddii uu cafiska badiyo inaanay noloshiisu ciil iyo cadho wehel la noqonayn. Sidoo kale waxa uu aaminsan yahay inuu cafisku yahay waddada farxadda iyo isku qanacsanaanta. Dadkani waa dad ku kalsoon inay wax kasta oo ay gacanta u qaadaan ay ka madhadhalin karaan, waayo waxay aaminsan yihiin inay leeyihiin awood xooggan oo ay saldhig u tahay baahi aad u daran oo ay u qabaan inay guul ka gaadhaan nolosha. Dadkani waa dad ka barta casharo qiimo badan guuldarrooyinka sida maalinlaha ah ugu dhaca, waayo waxay aaminsan yihiin inay guuldarradu calaamad u tahay inay wadaan shaqo adag iyo socod. Qofka noocan ahi maaha qof eega culayska dhibaatadu inta uu leeyahay, ee waxa uu ku dadaalaa inuu helo qorshe ballaadhan oo uu ku wajaho wakhtiga adag. Dadkani waa dad haddii ay waddo ku adkaato isku daya inay sameeyaan waddo kale, xitaa haddii aanay macquul ahayn inay hore u helaan, waayo waxay og yihiin in adayga noloshu muddo gaaban deris kula ahaanayso, laakiinse quruxda noloshu ay wakhti dheer deris kula ahaanayso ilaa aad ka geeriyooto mooye. Waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkani ku xiiso geliyey. Fadlan hoos igula wadaag inta qodob ee aad ka matasho dadkan. Waad mahadsantahay.